السلام عليكم أصحاب قالي waa idin salaamay meel baad joogtaan waxaan idin leeyahay nabad caafimaad farxad ku waara kusoo dhawaada channelkeena haddaan ugu cusub tahay soo dhawow subscribe noo saar haddaa video ka hesha like maanta waxaan sameysanaynaa pancake aad iyo aad u wacan aad iyo aad u wanaagsan nafaqo leh hooyo ahaan hooyo u fiican ilmo u fiican aabo u fiican siiba ahaan hooyooyinka ayuu u fiican yahay pancake-gan kusoo dhawaada daawasho wacan waxa dul saaran waa malab waa timir waxaan kaloo ku shubaynaa cafwan waa timir waxaan kaloo ku dul shubaynaa waxaa waaye qumbaha shiidan waaye hadda saan u jeedaan waa markaan soo dubno ka bacdi waxaan kaloo aan ku dul shubaynaa waxaa waaye malab sida ogtihiinba timirta malabka waxaa waaye aad ayay u fiican yihiin timirta aad ayay u nafaqo badan tahay u fitamiinaad badan tahay malabka sidoo kale fitamiinaad badan ayuu leeyahay waxaa waaye jirka nadiifin ayuu ku sameeyaa qumbaha sidoo kale hooyooyinka wuu u fiican yahay maasha allah kusoo dhawaada hadda waxaan bilaabeynaa inaan sameysano meeshaan waxaan ku haysanaa baaquli waxaan kusoo ridnay 2 xabo ukunta shaharka bis waxaan kaloo ku darayaa waxaa waaye wax yaroo cusbo ah waa ukunta shaharka qaybta cad waan ka bixiyay waa shaharka kaliya iyo cusbo iyo qaado faniila ama maxaa la dhahaa carfiso intaas ayaan isku qasayaa si fiican iskugu qasayaa ka bacdi gaar ayaan u dhiganayaa intaas markaan si fiican iskugu qaso hadda waxaan haystaa waxaa waaye baaquli waxaa iigu jiro qaybta ukunta labada xabo ukunta qaybteeda cad waaye waxaa iigu jiro waxaan ku darayaa wax yaroo qalka caadiga ah oo hilibadii waxaas lagu dhaqo ama saladhka lagu darsado waaye wax yariis ayaan ku dara waxay naga caawinaysaa in ukunta shiirkeeda zaa'idka uu naga bi'iyo waa kaas waa qalo waa vinegar intaas ka bacdi waan qaseynaa mashiinka ayaan ku qaseynaa markaan qaseyno waxaan ku dareynaa tartiib ayaan waxaan ugu dareynaa 3 qaado oo sokor ah 3 qaado sokor ayaan ku qaseynaa ilaa ay sokorta ay ka milanto waxa dhan kulli xumbo ee isla noqdaan markaan xoogaa garaacnaba 1 qaado sokor ayaan ku dareynaa sokortaas ayaa fiican sababta ay tahay dhaqso ayay milmaysaa kuma dhibeyso markaan xoogaa qasnaba qaado sokor ayaan ku dareynaa haddaad haysanin mashiinkan waxaad sameyn kartaa xurbiinka oo lagu garaaco ama lagu hagaajiyo doorshaha ayaad ku hagaagsan kartaa xoogaa waqti ayay kugu qaadanaysaa laakiin wax dhiba ma laha wax walba dulqaad waaka maasha allah si fiican ayaan usoo garaacnay kulli way isku dhex milmeen xumbo zaa'id oo qurux badan oo cream ayay noqdeen hadda waxaan ku darsanaynaa ukunta shaharkeedii 2 xabo iyo maxaa la dhahayay vaniiladii iyo cusbadii yartaa isku soo garaacnay haddaayto meel aan dhigana ayaan hadda ku dareynaa
si fiican ayaan kulli iskugu qaseynaa. maasha allah waa kaas waa isku soo qasnay si fiican ayay kusoo baxeen. hadda saas markaan u hagaajino waxaan sameyneynaa xoogaa yaroo bur nusko bur ayaan waxaan kusoo shaqshaqayaa baaquli ayaan kusoo dul shaqshaqayaa. nuskoobka dhan ma isticmaaleyno, waxaan ka isticmaaleynaa 4 qaado. burka waa in la shaqshaqo si kuskus u lahaanoo nadiif waan soo shaqshaqnay. marka kulli ma isticmaalayo, waxaan ka isticmaalayaa 4 qaado oo keliya ayaan ka isticmaalayaa. 2 qaado ugu horeysa ayaan hadda ku daray, waan ku qasayaa, qaadada ayaan kula qasayaa. markaan si fiican u qaso ayaan haddana ku darayaa qaado kale oo bura. tartiib tartiib ayaan burka ugu darayaa si ay xunbada nooga baabi'in. hadda waxaan ku daray qaado kaleeto oo bur ah. burka kulligiis inta aan ku daraayo oo dhan waxaa waaye 4 qaado ka kooban yahay burka aan ku daraayo. waxaan ku cabiraayana waa qaadada cuntada lagu cuno. waxaan kaloo ku darayaa markaan 4taas qaado burka ku daro waxaan kaloo ku darayaa nus qaado baking powder ah oo aan soo shaqshaqay. ayaan ku darayaa isagana. waa baking powder waa nus qaado waaye. waan soo shaqshaqa xataa baking powderka ama faxisada. intaas ayaan si fiican iskugu qaseynaa. intaas ayaan si fiican iskugu qaseynaa. marka si fiican iskugu qasmato intaas markay si fiican iskugu qasmato waxaan soo qaadaneynaa 1 qaado oo badhar ah ama batar ama subag ama saliid cadey kaa jeceshahay. waa batar aan soo dhalaaliyay. waxaan kaloo ku dareynaa 1 qaado oo caano ah, 1 qaado subag ah iyo 1 qaado oo caano ah. 1 qaado subag 1 qaado caano waaye. waxaan sameyneynaa burkii iyo waxyaalihii kale aan isku qasanay ayaan 1 qaado kasoo qaadaynaa. inta ayaan ku dhex dareynaa baaquligan saliidda iyo caanaha ku jiraan ayaan ku dhex dareynaa. waan ku qaseynaa saliidii caanaha burka toos ha ugu dhex shubin, sababta tahay in la qaso ay u baahan yihiin. saas ayaa gooni ugu qaseysaa. markaa saas gooni ugu qastid ayaa waxaa ku dul shubeysaa alaabtii hore aan usoo diyaarsanay. burkii iyo sokortii iyo wixii aan hore usoo diyaarsanay ayaad ku dhex shubeysaa, waad ku dhex qaseysaa. si fiican ayaan isugu dhex qaseynaa.
Pancake-gan soo tijaabiye wallaahi waa pancake aad u macaan. Qof kasta cuni karo, hooyo, aabbo, caruur. Hadda waxaan bilaabanaynaa inaan dubano. Birta waxaan marinaynaa wax yaroo subaga ama saliid kaa haysatid ayaa marinaysaa. Dabka waa inaa aad ugu gaabisaa sababtoo tahay pancake-gan waxaa ku yar burka, wuu kaa guban karaa. Markaa ku shubtid waa dabooleynaa. Markaan ku shubno waan dabooleynaa. Waxaan ku dabooleynaa weel aan zaid u hooseynin oo burka qabsanaynin. Hadda wuu bislaaday. Waa gedinaynaa, dhanka kale ayaan u gedinaynaa. Saas ayuu ku soo baxay. Kii labaad ayaan ku shubanaynaa haddana. Saas ayaa ku wadaysaa ilaa aad ka soo dhammaysid. Aad ayuu u jilicsan yahay. Markaad gedinaysid waxaa loo baahan yahay tartiib iyo taxaddar. Waan soo dubanay. Hadda waxaan sameynaynaa, waan sharaxaynaa. Waxaan korka ka saaraynaa timir. Waxaan kaloo ku dul shubanaynaa qumbo. Qumbaha aad ayuu ugu fiican yahay hooyada. Hormoonskuu saxaa, maxaa la dhahaa, caadaduu saxaa. Aad ayuu u anfacaad badan yahay qumbaha. Qumbaha waxaa waaye wax aad iyo aad u wanaagsan. Timirta sidoo kale aad ayay u nafaqo badan tahay. Xataa ilmaha haddii la siiyo, caanaha haddii lagu siiyo habeenkii waxaa waaye maasha Allah. Waxaan kaloo kusoo dul shubanaynaa waxaa waaye malab. Pancake-gan soo tijaabiye waa pancake aad iyo aad u anfacaad badan, u macaan. Haddaa video ka heshidna like. Waxaan idin leeyahay nabad ku waara iyo caafimaad meel walbaad joogtaan. Subscribe ii saara. Haddaa ka hesho videoga like. Waxaan idin leeyahay intaan ku kulmi doono muuqaal kaloo cusub. Fi amaanillah.